ugu horeyntii waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aqlabiyadda buuxda leh ee aad codka kalsoonida ii siiseen 1 Maarso. sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta hortiinna imaado si aan idinkugu soo gudbiyo barnaamijka xukuumadda iyo xubnaha golaha wasiirada ee fulin lahaa barnaamijkaas si aad waajibaadkiinna dastuuriga u gudataan oo aad codkiinna kalsoonida u siisaan. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan si hagar la'aan ah noo soo dhaweeyay nooguna duceeyay in Ilaahay nala garab galo xilkan adag ee aan shacabka Soomaaliyeed u qaadnay. sidaad la socotaan xildhibaanada sharafta leh waxay soo gaartay warqad uu guddoonka baarlamaanku ii soo qoray 25 Maarso 2017 taasoo ku saabsanayd cabashooyin ka yimid qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ku aadanayd golaha wasiirada magacaaban. cabashooyinkaas oo dhaliyay inaan mar labaad bilaabo wada tashiyo iyo kulamo gaar ah oo aan la yeeshay xildhibaanada sharafta leh. sidaa daraaddeed waxaan tixgelin doonaa talooyinka xildhibaanada sharafta leh. waxaan sidoo kale doonayaa inaan idiin caddeeyo in dhismaha xukuumadda haatan jirta aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin awood qaybsiga mustaqbalka. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, anigoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah sameeyeyna wada tashi ballaaran sida aan horey idinkugu sheegay ayaan waxaan 22 Maarso 2017 sanadkan soo magacaabay xubnihii golaha wasiirada anigoo dhan walba ka fiiriyay xubnaha golaha wasiirada oo maanta halkan fadhiya. waxaa looga fadhiyaa inay fuliyaan barnaamijka xukuumadda ee idin hor yaalla si aad barnaamijka isaga ah u qiimaysaan. waxaan isku dayay oo aan soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban dhammaan qaybaha bulshada leh khibrad aqoon iyo karti. sidoo kale waxaa ku jira golaha wasiirada dhalinyaro maadaama aan maalintii hore aan idin hor imid ballan qaaday in dhalinyarada aan siin doono mudnaad gaar si loogu dhiirigeliyo inay u istaagaan waxqabadka dalkooda wax ka qabadka dalkooda dantooda dadkooda iyo diintooda. golaha xukuumaddu waxaa isna kaalin muuqata ku leh haweenka oo aad ogtihiin inay mug buuxda ku leeyihiin xukuumadda aan soo dhisay xaqna ay u leeyihiin. waxaa kaloo ku jira khubro arrimaha xuquuqul insaanka iyo aqoon-yahano ka howlgeli kara hirgelinta maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka dowladnimo. waxaan horey hortiinna uga ballan qaaday inaan mudnaan gaar ah siinayo arrimaha abaaraha. anigoo ballanqaadkaas ka duulaya waxaan abuurnay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka si aan si degdeg ah ugu gurmano shacabkeenna iyo xoolaheenna oo ay saamaysay abaar keentay macluul. sidoo kale waxaan u soo abuurnay wasaaraddaas inay dedejiso qorshaha mustaqbalka looga hortegi lahaa abaarahaas. xildhibaanada sharafta leh, gudoomiye ku-xigeen, waxaan idinku farxad gelinayaa inaan saakay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay garoonka aadan cadde oo ku saabsanayd inaan markhaati ka noqdo diyaaraddii ugu horreysay oo duulimaad toos ah ka bilowday Muqdisho iyadoo u socota magaalada Nairobi aanan lagu hakin doonin Wajeer. maanta laga bilaabo waxaad ku bishaaraysanaysaan xildhibaanada sharafta leh iyo shacabka Soomaaliyeedba inaad Nairobi ku tegi doontaan waqti gaaban iyo si sharaf iyo karaamo mudan.
go'aankaasi waxa uu ka dhashay booqashadii uu dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku tegay dalka Kenya iyo dadaallo aniga iyo madaxweynuhu aan u galnay sidii shacabka Soomaaliyeed oo ay dhibaato ku ahayd arrinkaasoo ku dhowaad 10 sano inaan ka qaadno dhibkaas. waxaa kaloo arrinkani caddaynaya in haddii madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, xubnaha golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan inaan gaari karno tallaabooyin hufan oo wax ku ool ah dadka Soomaaliyeedna wax u tari kara. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa barnaamijka iyo ahmiyadda xukuumadda oo faahfaahsan, kuwaas oo hagi doona xukuumaddan soo dhisay oo howlgeli doonta markaad siisaan haddii Ilaahay yiraahdo codka kalsoonida. barnaamijkani wuxuu saldhig u yahay qorshaha howlmaalmeedka xukuumadda oo ay soo diyaari doonaan golaha wasiiradu marka ay la wareegaan shaqadooda gudahana u galaan howshooda. barnaamijka xukuumaddu wuxuu ka tarjumayaa aragtida, rabitaanka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed. si loo meel mariyo himiladaas waxaa lagama maarmaan ah iskaashi iyo wada shaqayn dhex marta hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, qorshaha xukuumadda ee 4 sano sida aad ku aragtaan barnaamijka hortiinna yaalla waxaa udub dhexaad u ah gaarista himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. waxaana mudnaan gaar ah siin doonaa arrimaha ay ka mid yihiin ka guulgaarista xasiloonida guud ee dalka, gaar ahaan sugidda amniga iyo la dagaalanka nabaddiidka, dhisidda iyo meelmarinta cadaalad, garsoor hufan, isla xisaabtan, daahfurnaan iyo ciribtirka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha si loo ballaariyo wax soo saarka, shaqo abuurka, maalgashiga iyo dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha, kuwaas oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka saboolnimada. xildhibaanada sharafta leh, gudoomiye ku-xigeen, mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la socotaan kulligiinba abaaraha ba'an ee dalka ka jira iyo saameyntoodu waxay halis u yihiin jiritaanka deegaano badan, dunyo iyo nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. abaartu waxay saamaysay oo halis ku sugan hadda ku dhowaad 50% shacabka Soomaaliyeed. sidaa daraaddeed xildhibaanada sharafta leh, waa lagama maarmaan inaan maal, muruq iyo maskax isugu geyno sidii aan u badbaadin lahayn walaalahayna tabaalaysan inta aanay waxyeelladu isku beddelin macluul aafaysa dad iyo dunyo Soomaaliyeed. ilaa maalintii aad sida sharafta leh kalsoonida baarlamaanka ii siisaan, waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyin wax ku ool ah. waxaan qayladhaan u dirnay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. waxaan ku guulaysanay soo ururinta kaalmooyin dhaqaale oo ka badan $2 milyan. boqolaal tan oo isugu jira raashin iyo daawooyin. deeqahaas waxay nooga kala yimaadeen shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, qurba joogta iyo dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay. waxaa intaa dheer deeqo lagu yaboohay oo gaaraya 20 milyan, kuwaasoo iyagana aan rajo weyn ka qabno inay dhowaanna soo gaaraan. deeqahan aan ka hadlay waa kuwa annagu aan dadaalka u galnay ee kama mid ahaa kuwa ay dalka keenaan hay-adaha gargaarka bini'aadamnimada. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa kaalinta qaramada midoobay, beesha caalamka, dunida islaamka iyo carabtu ay uga jiraan dadaalka gurmadka degdega ah. gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay
wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxa midowga Afrika oo si ay noo tusaan taageeradooda buuxda nagu soo booqday magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dawladaha gargaarka noo soo diray oo laantooda ay dib nagu noqon lahayd inaan u gurmano shacabkeena. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa shakhsiyaadkii adduunka caanka ka ahaa hadda ee bilaabay barnaamijka baraha bulshada si ay gargaar caalami ah ugu ururiyaan dadka abaaruhu saameeyeen. waxay u soo booqdeen xafiiskayga